markale galab wanaagsan meel walba oo daafaha dunida ka joogtaan kusoo dhawaada bandhiga nabad iyo nolol. barnaamijkeena galabta oo noqon doona mid kooban asxaabtan aan jeclahay inay uga qayb qaataan khadka Fiberka ama WhatsAppka. wuxuu noqon doonaa mid aan uga hadalno weydiinta ah ma ogtahay inay dawladdu tahay shacabka, si aynu u fahanno dawladnimadu inay tahay shacabka oo madaxdu ay ka timid shacabka ayna hogaamiyaal u yihiin shacabkuna la doonayo inay ku kalsoonaadaan. haddaba dawladnimo yaa kabi kara oo kaali kara oo bili kara waa shacabka. hadba waxay ku xiran tahay shacabka codka iyo taageerada ay siiyaan, kaalinta iyo doorka wanaagsan ay dawladdu ka qaadato dib u dhiska dalka iyo soo celinta waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bulshada sida amniga, waxbarashada, caafimaadka, dhismaha wadooyinka iyo kaabida dhaqaalaha. waxaan rajaynayaa saxaabtu inay fahmi doonaan macnaha dawladnimadu inay tahay shacabka, inay dawladdu shacab ka timid, ayna dawladdu shacabka wax ku celiso. lana doonayo dawladdu ma qoodiso shacabka ee shacabka ayaa dawladda qoodiya. waxaana ku qoodiyaan canshuurtooda iyaga oo bixinaya si ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin. haddaba haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed oo nidaam canshuureed xilligan uusan u dhisnayn, qof walba oo Soomaaliya waxaa laga doonayaa inuu dawladda la garab istaago. 1,000 shilin uu bixin karo, $1, $10, $100 kii eeba wax siiyey, $1,000 kii aan waxba heenin in uu hiil iyo hoo afka ah uu la garab istaago dawladnimada, si aynu u noqono qoomiyad midaysan oo leh aragti fog oo dalkooda ay ku nabdiyaan. halka aynu ka fikirayno hawiye iyo daarood ayaa kursiga ku fadhiya, sanadkan daarood ayaa ku fadhiya, sanadka dambe beesheeda miyaa heli doonta oo hawiye mise dir ayaa heli doona, mise raxan weyn ayaa heli doonta oo yaa noqon doona madaxweyne, imise wasiir ayaan leenahay, imise xildhibaanada noogu jirta. intaan taas ku mashquulin lahayn waa xilliga aynu ku mashquulin lahayn qofka Soomaaliga xilka haya waa walaalkii Soomaaliyeed. haddii ugu hogaaminaya cadaalad, sinaan iyo uu ii horseedayo amni iyo barwaaqo Soomaaliya ah, waan ku taageersanahay. hadduu yahay hawiye, hadduu yahay daarood, hadduu yahay dir, hadduu yahay cid walba uu yahay, waxay deeqda waxa ay ugu hogaaminayo. oo muhiim marnaba inooma aha in aynu fiirino qofka qabiilkiisa, waxa inoo muhiima inaanu fiirino tayadiisa qofnimo. haddii aan dib idii xusuusiyo magaalada Muqdisho, xilli waxaa jirtay qofka la isu dili jiray qabiil oo la ugaarsan jiray qofka qabiil kale ka soo jeedo oo caasimadu ay ahayd mid kala xiran oo kala qoqoban. xilli waxaa jirta caasimada gudaheeda 2 lacagood ay ka socdeen, mid madaxweynihii hore Cali Mahdi uu soo sameeyay oo na 20 la oran jiray iyo shilinkii Soomaaliga dawladii hore ay kacaanku ay sameysay. haddaba maxaa loo baahan yahay maanta inaynu fahanno muhiimadda ay noo leedahay dawladnimadu. maanta waa inaynu fahanaa dawladnimada. xaq ayaa u leedahay inaad dhaliishid dawladda oo mucaaradid, laakiin marnaba xaq uma lihid inaad qabyaalad ku mucaaradid oo qabyaalad uga soo horjeesatid. mar walbana in la ismucaarado oo dawladda la mucaarado way jiri doontaa. mucaaradkuna waa kan dawladda saxa ee dhaliilaheeda soo bandhiga. dunida meel walbana way ka jirtaa in madaxda qaranka lagu dhago oo la dhaliilo waxqabadkooda iyo heshiisyadii ay galayaan. waa mid soo jireen ah oo aan taageersanahay, oo mucaaradka sida wanaagsan wax u mucaarada aan ku taageersanahay. laakiin marnaba waxaan yeeli doonin oon aqbali doonin kuwa dawladda ugu dhaga qabiil ahaan ee farmaajo yiraahda waa daarood, ra'iisul wasaaruhu waa hawiye, waa murursada, kuwa saas ugu dhaga marnaba aragtidooda ma aha mid aan dhankayga soo dhaweynayo ama ay noqon doonto mid aan dabcan u heelanaado. mar walba waxaa ii muuqda farmaajo inuu yahay aabbaha ummadda Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya ku nool, uuna u hogaaminayo uu u horseedayo waddo barwaaqo. heshiisyada ay dawladdu galayso ee la galaysa waddanka Itoobiya ee ganacsiga waa mid aynu ku baraari doono oo aynu ku barwaaqi doono hadduu eebaweyne idmo. ha dhegaysanin midka qaylinaya ee leh Itoobiya heshiis yaan lala gelin, Itoobiya wayna dhacaysaa. waa kan walaalkiis nacab oo u arka inuu walaalkiis ka yahay daarood, inuu walaalkiis ka yahay hawiye, in walaalkiisa Soomaaliyeed ee walaashiisa Soomaaliyeed gabar qurux badan oo sandheer leh oo kala xiran oo jagoosa ku diida. waxaa tahay gabooye, waxaa tahay midgaan ku yasa, asagoonan kabihiisa tolan karin, asagoo mindida uu neefka ku xalaalaysan lahaa oo ku biraan lahaa samaysan karin, isagoo wadaantii ceelka biyaha uu ku shuban lahaa aanan awoodin. kaas haddaba ha aaminin. daawadaha ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursada siiyo. halo, asalaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة. haye soo dhawo walaal, magacaaga halkaad joogtay.
haye farxan soo dhaweeyeen ma og tahay in dowladdu ay shacabka tahay aan ogahay taas waxaa waa dowladda shacabkeeda dhista shacabkeedana dumiso si wanaagsan haye dowladda maxaa taageero oo la garab taagan tahay markii ka farxaan ahaan oo South Africa jooga oo wadankiisii markuu arkay fursad shaqo inaysan ka jirin nabad iyo nolol wanaagsan inaysan ka jirin door biday meel la isku dilayo wadan kala tagay maxaad dowladdaadii taageero oo la garab taagan tahay dowladdeeda aniga waxaan la taaganahay hiliho intaba meel kastana waa ka taageera haddii dhanka social media noqoto iyo dhanka labaad ay noqoto waxaan ahaa nin dowladdiisa garab taagan hadda jeerna u qalalaamiyo ma kula tahay inaan joogno maadaama dowladdeena aysan canshuur wanaagsan aysan ka helin gudaha dalka xilligii dowladdeena $1 $1 $10 aynu ku garab istaagi lahayn oo dowladdeena aan oran lahayn intan ayaan awoodaa maanta dowladnimada lagu kabo waa meeshii loo baahnaa hadda in dowladda garab la siiyo ciidamada la taakulayo ururo bulshada Soomaaliyeed ka tirsan u garab istaagan ciidamada dhaqaale una waruriyaan aad baa lagu baahan yahay oo maanta marxaladda lagu jiro mid ka baxsi kartaa maahan ciidamada mushaarka jaabkooda ay ka dhiiban karaan farxadiga waxaa jeclahay inaan bilowno barnaamij bixinta canshuurta qaranka la yiraahdo oo aan u bixinin qaaraanku wuxuu noqonayaa mid aynu ku liideyno hanaanka dowladnimadeena inaynu bixinta canshuurta qaranka niraano maadaama South Africa joogtid haddii aad shaqaysid ma u maleysaa sanadkii inay kaa go'do $120 bishii $10 aad bixisid bismillah ma sha Allah hadda arrintaas kala soo xiriir ma laga yaabaa in laga helo bishii $10 waa laga helaa diyaar waa aad iyo aad u mahadsan tahay farxandiga South Africa jooga aragtidaada qurux badan iyo sida barnaamijka uga qayb qaadatay waana kula soo xiriiri doona saaxiib waa mahadsan tahay daawadaha kale khadka ku jira fursada siino halo assalaamu calaykum daawadahaas dabcan waa u suurtagali weyso inuu ka qayb qaato inuu kusoo noqdo ayaan rajeynayaa asxaabta daawanaysa 40 qof waxaa idinka codsanayaa barnaamijkan inaad share gareysaan aad gaarsiisaan maanta waxaa idinka codsanayaa inaad gaarsiisaan 500 oo share haddii aad tihiin muwaadiniin Soomaaliyeed waaba tihiin oo kuwa qabyaaladistayaasha oo qabyaalada faafiya wuxuu waa la shargareeyaa waan buunbuuninaa laakiin waxa aan dowladnimada ku dhisanayno oo ummadda Soomaaliyeed aan iskugu xireyno waa in aan dabcan ka qayb qaadanaa oo aan kulligeen u midownaa danta guud oo ka soo jeesanaa kuwa qabyaalada buufinaya reer hebel dib ayaan jeclahay inaan taariikhda hadba dhinaca idinka milicsado waxay xusuusinayaa sanadkii 1992 93 94 ilaa iyo 1996 magaalada Muqdisho waxaa jirtay macnaha runta waa inaan isu sheegnaa oo luqadda qabyaalada kuwa qabyaaladistayaasha kula hadalaa si isfaham buuxa u yimaado xilli magaalada Muqdisho qofka daaroodka mareexaanka siiba lagu ugaarsan jiray oo lagu dili jiray oo la dhihi jiray halku ku jira sidii qofka asagoo la cunayo markii xaqiiqada ka hadalno wixii waxa sameeyay wuxuu ahaa walaal Soomaaliyeed oo jahli ah ma sameeyeen qabiil ma sameeyeen hawiye ma sameeyeen reer hebel gaara waxa sameeyay waxay ahaayeen shakhsiyaad ay qabyaaladu madax martay oo waashay oo shaydaanku uu adeegsanayay maanta yaa wadanka madaxweyne ka waxa kama farmaajo oo daarooda oo mareexaana ayaa kursigii madaxtooyada ku fadhiya Soomaaliya oo dhan madaxweyne waa kuwa qabyaalada aaminsanaya fariintaas aan u dhiibaya haddii isleeyihiin Soomaali way kala tagaysaa Soomaali waa mid qabaa'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allah ayu Allah subhanahu wa ta'ala oo yiri qabiilku saasi tahay qofka Soomaaliga ma aha inuu macno u yeesho qabiilku kaliya markii aad gabar doonatid oo sodogga ku weydiiyo yaa tahay waa inaad dhahdaa cidaas iyo cidaas aan ahay inta ka dambaysa qofnimadaada kartidaada hufnaantaada daacadnimadaada wax ku noqo qofka ku jeclow oo ku nac farmaajo qabiil kuma jeclin kuma dooranin kuma rabno waxaan ku